ayadoo abaabul mar kale uu ka bilowday oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa haatan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa deegaanka ay gaarayaan furmaha dagaalka xilli taliyaha ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Hirshabelle Jarnaal Xasan Dhiciso Xasan oo uu sheegay boqolaal ciidan oo kula hadlayay deegaanka Xaaji Cali in ay weerar ku qaadaan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xilli uu tilmaamay in haatan uu bilaaban doono howlgallo isdaba joog ah ay fulin doonaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya saaxiibada Soomaaliya kaasoo inta badan al-shabaab looga saarayo deegaanada kala hor ay soo galeen ee gobolka shabeellaha dhexe. Jarnaal Xasan Dhiciso Xasan ayaa hadalkiisa intaas ku sii daray in haatan loo baahan yahay cid walba qori haysta ay ku sugan deegaanka in ay u kacaan sidii al-shabaab ula dagaalami lahaayeen loogana saari lahaa deegaanada haatan ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe. waxaan leeyahay meeshan taaganna waa Xaaji Cali. Xaaji Cali dadka deganna waa la yaqaano hadda cid loo sheegayaa ma jirto. waxaan u malayaa cadowgiina sumadaale meel la yiraahdo Xaaji Cali ku soo dhow u joogiya waxa kale oo dhinaca kale ka jooga ceelbuluq sidaad ogtiinba waa deegaanadii aad ka soo jeedeen dadkiina hadda inta taag deegaano kale oo lamid ah intaan ka fara badan ama ka sii dambeeyana oo dad idinkeeda lamid ay leeyihiin waa soo qabsadeen say ila taana doqonnimo ku soo qabsadeen ma inaad awoodtaas ku soo qabsadeen ma jirto goob kasta iyo meel kasta oo tagnaa huna saad hadda idinku aad meeshan heegan adigu tiina heegan lagu ahay hadda waxaa loo baahan yahay qaragu maaha in la iska sitay waxa loo sito qaragu waa in cadowga la iska celshaa waxaan ognahay Cabdulla Caroon inaad iska celi kartiin cadowga waxaan ognahay dad dagaalamaya inaad tihiin hadda waxaan rabnaa dagaalkii la idinku yiqiin oo Soomaaliduna idinku tiqiin anaguna idinku naqiin dagaalkii la idinka rabaa kalka inaad la soo baxdiin labadan wajahado idinku aadan waxaa la rabaa cadowgu inuusan sii deganaan maalmaha soo socda howlgala bilaabo doona howlgala la gelaa ciidamada dawladeed ha ahaadaano oo ciidanka Soomaaliyeed ha ahaadaan ciidamo kale oo ajaanib ah ha ahaadaano dhammaan waxaa la rabaa howlgala la geli doona hadii la yiraahdo dadkii hor kicilay howlgalkaas oo la rabo inay hor kacaan oo u indhaana waa idinka dadkii deegaanka waa idinka cid la rabo inay hor kacdaan waa idinka hadda ciidanka deegaanka ma qaba kari hadii ciidanka idinla jooga wuxuu qaba kari ma jira hadda idinka hor kicin waxaad ka rabnaa hadda idinka iyo kuwa kale idin la midaba oo aan hore u soo aragnay laga bilaabo saacadaas in loo diyaar garoobo cadawga in la dagaalamo cadawga nagu soo duulay nagu deegaan maaha nalama dhalan meel ka yimid cid shaaw ma jirto waxay u badan yihiin qaara Itoobiya ka yimid oo Oromo Soomaali soo qaadaysa diin boqolkii 70 ama 90 ana ee la dhigi kara Itoobiya ay gaalata diin markii Itoobiya laga soo qaado hadda maanta Soomaali loo soo qaado anigu ma garan karno wuxuu yahay waxaad ogaatiin meeshaas inaysan diin ka jirin wax diin la yiraahdo ka jira ma jiraan waa niman raba dalkayna dadka inay qabsadaan guriyayna maan uga tagaynaa niman cadow raba inay guriyaha qaataan maan uga tagaynaa maanta hadii Xaaji Cali hadda u dambeeyay hadii cid la yiraahdo hadii laga bax meel la aada ma taqaani okay meel ay noogu aan ka tagna hadana meel ay noogu heerayaan oo aan islaana meeshaas dad gaartiin cadawgan soo daba kicimo waana siiyaan noo hela yaa cid ugu baajirta hatta maanta waxaa loo baahan nafta inaan u hurnaa dagaaladii hore loo geli jiray oo hoos dhulkan ka dhici jiray iyo midka maanta taagana waajib muqaddas ah hadduu ku dilaa jinna ku gale haddaad dishaa jinna ku gale midaadna jinna aad ku galeen dab galayseer kan waxaan u maleeyaa inuu sharaxeed ku ordaysiin oo u maleeyaa kan markay jinnaad ku galaysiin waxaan rabaa marka in aan ku dhaqno wixii hore soo marnay aan ku meeyre kan aad jinna ku raadsano muddooyinkii la soo dhaafay ayaa mas'uuliyiin dawladeed oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada Hirshabelle iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay gaarayeen furmaha dagaalka inta badanna ay abaabulayeen dagaal ka dhana al-shabaab si looga saaro deegaanada haatan ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe ee kol hore ay soo galeen.